بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo ku dhawaaqay ballaarinta istiraatiijiyadooda dhanka difaaca ee badda ee Mareykanka Hormuz laabaha maanka Iran oo shaaciyay inay ka hortageen hub dalka la soo gelinayay oo lagu xiriirinayo sirdoonka Israa'iil ee Mossad hogaamiyaha aqlabiyadda kooban ee aqalka sanadka Mareykanka oo sheegaya in Donald Trump Mareykanku uu ku jiiday dagaalka Iran ugu yaraan laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka waddanka Lebanon ayaa ku dhintay duqeymo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lebanon dhaawacna waa uu jiraa iyadoo tani qayb ka tahay weerar ballaaran oo Israa'iil ay wado iyo duqeymo kale oo Xisbullah ay ku hayaan ciidanka Israa'iil dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo faraqayntii iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu haynaa barnaamijka wararka caawa maxamed cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn qaybta badda ee ciidamada ilaalada kacaanka ayaa ku dhawaaqay in istiraatiiji ahaan ay kordhiyeen meelaha ay difaaca kaga jiraan ee Mareykanka Hormuz waxayna digniin ku bixinayaan inaynan ogolaan doonin in xadgudub lagu sameeyo dhulka waddanka Iran iyo biyihiisa iyo danihiisa qaran Admiral Maxamed Akbar Sadeeh oo ah ku-xigeenka xagga siyaasadda ee ciidamada badda ee ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka Iran ayaa sheegay in Iran ay isbeddel weyn iyo qeexitaan cusub ku samaysay xuduudyada istiraatiijiyadeed ee baddeeda ay kaga difaaca kaga jirto hore Mareykanka Hormuz waxaa lagu qiyaasi jiray deegaano ku xadidan jasiiradaha u dhaxeeya Hormuz iyo Hengam qariidada hadda waa isbedeshay sida Akbar Sadeeh uu hadalka u dhigay waxay Iran u tixgelinaysaa Mareykanka Hormuz in lagu ballaariyay laga soo bilaabo xeebta Jask iyo lagu geeyo xeebta Srik waxaana muuqata deegaankii istiraatiijiga ahaa in aad loo ballaariyay haddii si kale loo dhigo Mareykanka Hormuz ayaa aad u ballaartay waxaana laga dhigay deegaan aad u ballaaran sida Akbar Sadeeh uu hadalka u dhigayo markii hore ballaca waxa uu ahaa 20 ilaa iyo 30 mayl hadda waxa la gaarsiiyay 200 ilaa iyo 300 oo mayl haddii si kale loo dhigo 500 oo kiiloomitir u dhaxaysa Jask iyo Srik waxaana sida qariidada aad ka aragto waa inta kor ku taala midabka qaxwaha ciidamada ilaalada kacaanka qaybta u qaabilsan sirta ayaa sheegaya in ay burburiyeen 5 meelood oo hubka si qarsoodi ah looga soo gelin jiray laguna xiriirinayo in dadka ka shaqeysanaya ay gacan saar la leeyihiin Israa'iil ciidamada xogta iyo sirta ka shaqeeya Iran ayaa bartilmaameedsaday howlgallana ka fuliyay dabagalna ku sameeyay goobaha hubkaasi laga soo wareejiyay dhaqdhaqaaqyada hubka iyo rasaasta aanan qaanuunka waafaqsanayn 20 canaasir ayaa 5 goobood laga helay waana la burburiyey waxaana lagu sheegay inay yihiin ururo argaxiso ah hub iyo rasaas si qarsoodi ah waddanka ku soo gelinayay waana laga burburiyey sida bayaanka laga baahiyay idaacadda lagu sheegay in ka badan 50 qori oo qoryaha doordooriga u dhaca iyo 70 kilogram oo qaraxyo ah iyo 2,000 oo baalooto oo hubkaasi loo isticmaalayay iyo hub kale ayaa dowladda ka qabatay shakhsiyaad lagu xiriirinaya inay yihiin argaxiso 2 qof oo ka shaqeynaya gurmud degdeg ee xagga caafimaadka ayaa la dilay mid kalena waxaa lagu dhaawacay magaalada koonfurta ah ee Nabeta kadib markii ciidanka Israa'iil ay si toos ah u beegsadeen dadkaasi caafimaadka ka shaqeynayay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Lebanon
dadkaasi gurmud degdeg ka shaqeynaya ayaa isku dayay inay badbaadiyaan qof dhaawac ah oo mar dambe weerarka labaad lagu dilay sida bayaanka lagu sheegay lagu baahiyey wakaaladda wararka ee qaranka Lubnaan. Israa'iil ayaa si joogta ah u weerarta dadka ka shaqeeya hay-adaha caafimaadka iyo goobaha caafimaadka. howlgallo dardar badan ku socda ayaa Israa'iil Lubnaan ka waday, taasoo caalamka oo dhan uu cambaareynayo. weerarka Maraykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen waddanka Iiraan ayaa qarashka ku baxay waxaa la gaarsiiyey 29 bilyan ilaa iyo hadda, sida mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee Maraykanka uu sheegay. lacagtii bishan horaanteedii bishii hore dabeeqadeeda la sheegay ayaa hadda waxaa ku biiray 4 bilyan oo dollar. Julius Hertz oo u qaabilsan la xisaabtanka ama xisaabinta qarashka dagaalka ku baxay ayaa u sheegay Koongareeska Maraykanka in macluumaad cusub la helay maadaama qalab la dayactiray iyo howlgallo wax lagu dhisay la qabtay. Senator ka tirsan Koongareeska Maraykanka oo Chuck Schumer la yiraahdo ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump in uu Maraykanku ku jiiday dagaal uu la galo Iiraan, wuxuuna sheegay in xisbiga dimuqraadiga senataradiisa ay ku qasbi doonaan in codbixin laga qabto aqalka Seneedka si loo soo afjaro howlgalka military. isagoo la hadlayay senatarada ayaa Schumer waxa uu sheegay maamulka Trump in 60kii maalmood ee qaanuunka u ogolaa in uu dhaafay. mar kale aan ku celiyo, Donald Trump ayaa waddanka waxa uu ku jiiday buu leeyahay dagaal qaanuunka khilaafsan, kharash badanna uu ku baxay, hadafyadiisana aan la gaarin, meel uu ku dhammaanayna aan dagaalkaasi la aqoonin. hadda waxaa la joogaa buu yidhi 7 ayaa kasoo wareegatay markii la dhaafay 60kii maalmood ee qaanuunka uu u ogolaa, gaar ahaan xeerka dagaalka, taasoo macnaheedu yahay in colaadda ay waajib tahay in lasoo afjaro. madaxweynaha Maraykanka waa inuu ka helaa Koongareeska ogolaasho haddii dagaalkaasi uu sii soconayo. madaxweyne Trump iyo xogayihiisa dagaalka Pete Hegseth ayaa isku dayaya in ay waqtiga kororsadaan, waxayna u sheegeen Koongareeska in dagaalkii waqtigiisa u dhammaaday. warbixino ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay abuureen goobo qarsoodi ah oo ku yaala saxaraha Najaf oo loo isticmaalayay dagaalkii ay wadajirka u qaadeen Israa'iil iyo Maraykanka oo ka dhanka Iiraan, si loo duqeeyo goobaha muhiimka ah ee ku yaala Iiraan gudaheeda. waxaana daboolka laga qaaday in goobtaasi saxaraha ku taala Israa'iil ay u diyaarisay in Maraykanka uu hubkiisa ku urursado. Al-Hashimi ayaa sharaxaad ku siiyey warbaahinta in ciidamada ammaanka ay ogaadeen in ciidamo ay joogaan saxarahaasi Najaf, waxaana muuqata in ay tilmaamayso 40 saacadood kadib in ciidamada ay yimaadeen, lana ogaaday in aanan saldhig military uunan meeshaasi ku oolin. arrintan ayaa waxay soo baxaysa iyadoo xukuumadda Ciraaq ay xaqiijisay in ciidamada Ciraaq ay mar horeba isku dhacayn, ogaadeenna in la diyaarinayay in ciidanka ay halkaasi ka baxaan. waxaa sidoo kale hoosta laga xariiqay oo bayaanka lagu sheegay inaysan jirin saldhigyo military oo Ciraaq gudaheeda ku yaala oo uu Maraykanku leeyahay. hagaag maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal gordhow wararka ugu dambeeyey haddii ay wax soo dhaceen iyo sidoo kale falaqaynta, laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed, aan u galno arrimahan taagan xaaladda bariga dhexe. dagaalkana waxaa leeyahay Iiraan qatar ayuu ku noqonayaa Maraykanka awooddiisii caalamka. maxaa loola jeeda arrintaas? sida uu hadalka u dhigayo Lorenzo Camel oo professor ka ah xiriirka caalamiga wax ka dhiga
jaamacadda Turin ayaa waxa uu sheegayaa Trump inuu u baahan yahay in uu xalilo qalalaasaha iyo dagaalka uu kula jiro waddanka Iiraan iyadoo la filayo ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee 2026 inay bilaabanayaan iyo doorashooyinka dhexe in Mareykanka lagu qaban doono ay soo dhow yihiin si madaxweynaha Mareykanka uu mudnaan u siiyo arrimahaasi ayaa waxa uu raadinayaa xabad joojin ku meel gaara. Kamel ayaa waxa uu sheegay maamulka Trump ayaa waxaa dhici karta in uu ku soo aadiyo haddii dagaal kale uu dhacayo natiijadana ay noqon doonto waxaan la hubin mar kale. Mareykanku waxaad moodaa hadda in xaalad culus uu ku jiro. Iiraan ayaa waxaad moodaa wax badan inay ka faa'iido dagaalka iyo qaabka uu wax u dhaceen, iyadoo Mareykanka dhankiisa marka laga fiiriyo dhibaato weyn lugaha kula jiro sida khabiirkaas hadalku dhigayo. muddada dheer marka la fiiriyo Iiraan qalalaasahan waxa ay ku jirtaa khatar in ay ku noqoto jiritaankeeda marka la fiiriyo dowladda Mareykanku in ay maareynayso qaybo badan oo kamid ah caalamka. Iiraan ayaa marka waxay doonaysaa sida khabiir kale uu hadalka u dhigayo dowladda Mareykanka inay $10 bilyan dagaalkan ku bixiso ay Iiraan kula jirto. maxaa yeelay Trump ayaa waxa u baahan yahay in waddanka gudihiisa uu guul ka soo hiyo sida lafagurayaasha arrimaha difaaca hadalku dhigayaan. marka la fiiriyo ujeedooyinkii dagaalkan laga lahaa Mareykanku wuxuu gaaray lama arko. taasina macnaheedu waxa weeye barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan lama burburinin. gantaaladii Iiraan ee ballistikada ahaa iyo barnaamijkooda waxba lagama qabanin. intaa waxaa dheer in xukuumadda Iiraan laftirkeeda la rabay in la rido welina ay awood leedahay dalka ay xukunto. midda ugu xun ayaa waxay tahay marinka Hormuz inuu xirmay sida Wolfgang Bush oo hadalka u dhigayo. madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump Iiraan dagaalkiisa ayaa waxa cad in uu noqday mid saameyn weyn ku leh siyaasadda gudaha ee waddanka Mareykanka. si uu madaxweynaha Mareykanka xisbigiisa uu u guuleysto markay ugu yaraato kuraas badanna uu helo xilliga doorashada dhexe wuxuu u baahan yahay in uu guul xadidan gaaro. Iiraanna ma doonayso in ay fursadaasi Mareykanka madaxweynihiisa siiso, way ka hor istaagaysaa. Iiraan waxay rabtaa wejigabaxnimo inuu la hoydo madaxweynaha Mareykanka. waa gartay arrintaas wejigabaxnimada haddaynu ku sii soconno waxaa leeyahay marka dib loo eego heshiiskii Obama uu la galay Iiraan inta badan waa la isfahamsanaayo xaaladdu caadi bay ahayd, laakiin maxaa loola jeedaa Iiraan waxay bahdil ku samaynaysaa ama wejigabax ay ku ridaysaa madaxweynaha Mareykanka? madaxweynaha Mareykanka waxa uu rabaa in heshiis la gaaro ka fiican midkii Obama uu qaybta ka ahaa oo wadamada shanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku jirta iyo Jarmalka ay Iiraan la gaareen 2015. madaxweynaha Mareykanka waa ku dhib badan tahay marka in uu heshiis noocaasa helo sida lafagurayaasha hadalku dhigayaan. Trump hadaladiisa handadaada iyo bootada ma aha kuwa gacan ku siinaya inuu heshiis Iiraan la gaaro, sida Fuad Izedi oo wax ka dhiga jaamacadda Tehran hadalku dhigayo. marka laga hadlayo burburinta ilbaxnimada waddanka Iiraan uu Mareykanka ka hadlayo, Iiraan waxaan ku celinayaa xilligii dhagaxa waxaa loo arkaa in ay dharbaaxyo weyn ku tahay Iiraan markay ugu yaraato shacabku waxay la tahay in waxa laga hadlayo ay tahay Iiraan in lagu weeraro bam nuclear marka la fiiriyo sababtaasi madaxweynaha Mareykanka wax badan handadaada uu Iiraan u jeedinayo waxba uma tarin. barnaamijkii tayagelinta nuclearkana waxba kama qaban. maxaa yeelay haddii madaxweyne Trump uu Iiraan ku weeraro hub nucleara uu khatar geliyo Iiraan barnaamijkeeda nuclearka, marka Iiraan waxa ay fursad u helaysaa in uraniumka ay tayagelisay ay nuclear ku samaysato. labada dhinac waxa ay doonayaan
in ay galaan dagaal aad u weyn, laakiin waxaa la door bidayaa in nabad wax lagu soo dabaalo sidii Isiidii hadalka u dhigayo. laakiin Maraykanka madaxweynihiisa waxaad moodaa culays badan inuu saaran yahay. waa gartay waa yahay dhinaca kale haddaynu ka eegno hadda arrintu way cakiran tahay gudaha Maraykankana dood adag ba ka taagan waynu maqlaynaa Jack Schumer wuxuu leeyahay tilaabooyin dheeraadaan qaadi doonaa inkastoo laakiin Koongareeska iyo Senadka labadaba laga haysta Trump. marka miyaa la oran karin arrintaasi fursad bay siinaysaa xagga labada aqal dhanka dhaqaalaha dhibaatada way jirtaa. marka dabar iyo saate ma u yeeli karaan Jack Schumer iyo xisbigiisa dimuqraadiga Donald Trump? xisbiga dimuqraadiga aqlabiyadda waa laga haystaa, laakiin galgal ayay leeyihiin, dadka ayay saameyn ku leeyihiin. mudaaharadyo waaweyn ayay soo bixiyeen. siyaasadda madaxweynaha Maraykanka oo dhan way fashiliyeen. madaxweynaha Maraykankana sida aaraha dadka lagu ururiyay ay muujinayso sumcadiisa aaday hoos ugu dhacaysaa. tan kale oo ay lugooyo weyn u arkaan khubarada arrimaha Maraykanka la hadla sida Professor Sachs, waxa weeye madaxweynahan Maraykanka hadaladiisa iyo sida uu u dhaqmayo ayaa dadkii oo dhan ay nolol dhacsanayn. dagaalkan waa laga baaqsan karay, waxaa lagu tilmaamay dagaal khiyaari ah oo Maraykanku galay. waxaana la aaminsan yahay inay Israa'iil ku riixday. wararkii ugu dambeeyay soo baxayay iyo wariyaal tegay oo soo booqday oo ka socday idaacadaha Maraykanka xerihii militariga ee Maraykanka laga burburiyey kulligood waxay soo bandhigeen khasaare xoog leh in Maraykanka u gaaray. dagaalka in lagu noqdana Maraykanku wuxuu u baahan tahay inuu Congress ka taageero. madaxweynaha Maraykanka culayska saaran ayaa waxay tahay sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan, wuxuu rabaa inuu xeelaysto oo uu xaaladan aan dagaalka ahayn, nabadda ahayn uu Iiraan ku sii wado. laakiin waqtiga ayaan u adeegaynin sababtoo ah Iiraan dagaalkan sida ciidamada sirta ee Maraykanka ay warbixin ku soo gudbiyeen muddo dheer ayay adkeysan kartaa, 4 bilood ayay ku qiyaaseen. laakiin barnaamij gaar ah oo aan sameynay oo idaacadaha soo socda ku bixi doona waxaa la odorasayaa Iiraan inay muddo dheer kasii shaqaysanaysay in cunaqabataynta ay hore u saarnayd aawadeed iyo xiritaanka xagga badda iyo dekedaha inaynan ku tiirsanaanin marinka Hormuuz oo ay xiratay khadad tareen iyo wadooyin shixnadaha ay dhoofsanayso iyo kuwa lasoo dhoofinaya ay wadanka si nabada ugu soo galaan. waxaan la aaminsan yahay dagaalka inuu muddo dheer qaadan karo haddii weji labaad oo dagaalka la galo. madaxweynaha Maraykanka dhankiisana wuxuu rabaa inuu xeelaysto ilaa iyo inta doorashada laga gaarayo khadka dhexe in uu xaaladda sidan kusii wado. markii doorashadaas iyo cayaaraha adduunka laga gudbana uu dagaal ku noqdo sida khabiirada hadal ku dhigayaan. laakiin sida ay tahaba Iiraan ma muuqato inay u tanaasuleyso madaxweynaha Maraykanka. waa garta waay Trump caawa wuxuu usii socdaa Shiinaha oo berri wuxuu tegi doonaa Beijing, halkaasi uu kala kulmi doono Xi Jinping. maxaa laga filan karaa kulanka labada nin? marka ugu horeysa Iiraan iyo Shiinaha xiriirka ka dhexeeya ay saxiixdeen waa 25 sano in Iiraan ay shidaal raqiis ka gado wadanka Shiinaha. wadanka Shiinahana 400 bilyan oo dollar oo kaabayaala tareemo wadooyin inuu Iiraan u dhiso. Shiinaha dhankiisa marka laga fiiriyo maalintii marinka Hormuuz waxa u mara oo wadankiisa aada in ka badan 5 milyan oo fuusto oo shidaala in shidaalkaasi uu carqalad galo. inkastoo hore ugu sii diyaar garoobay oo shidaal sii kaydsaday, maalin walba oo carqaladahan ay waxaana sii socdaan saameyn ayay ku yeelanaysaa sida khabiirada la socda dhaqaalaha wadanka Shiinaha hadal ku dhigayaan in dhaqaalaha hoos u dhac uu ku yimaado 0.5 haddii ay xaaladan sii socoto. Maraykanka hore ayaa waxaa isu dhaafsanaa Shiinaha
iyo maraykanka waxayna isku haysteen caqliga samayska ah oo laga mamnuucay waddanka shiinaha waxay bilowday markii lagu soo rogay canshuuraha iyo cunaqabataynta xagga caqliga samayska ah in ay nafteeda isku tiiriso. madaxweynaha maraykanka gacantiisa wax weyn kuma jiraan oo aanan ka ahayn in uu carqaladeeyo khadkan shidaalka u marayso, shidaalka faraha badan uu shiinaha u marayo. khabiiradana waxay leeyihiin shiinaha haddii khiyaar uu leeyahay waddan saaxiib la ah uu kula jiro heshiis 25 sannadood ah oo shidaal raqiisa laga iibinayo, maraykanka ku doorsan maayo. maraykanka markii uu tago madaxweynihiisa wax allaaliyo wixii uu sheego, shiinaha waxa weeye waddan dantiisa ka shaqeeya. maraykanka go'doomintan uu hayo iyo hawshan uu wado uma adeegayso maraykanka dantiisa iyo danka shiinaha toona. waxaa laga yaabaa in uu kala kulmo sida khabiirada qaali hadal ku dhigayaan yirahda cagaha dhulka dhig. iiraan dagaal caadi ah kaga adkaan weysay, waxa allaaliyo wixii kartidaada waa isticmaashay. adduunkii oo dhan iyo shidaalkii ayaa khatar ku jira hadda. waxa weeye shiina haddaan nahay danteena ayaa ku jirta inay meeshan nabad ahaato. waddamadii saaxiibada ahaa ee gacanka ahaa khayraadkoodii ayaa khatar ku jira. arrintan nabad ha lagu dhameeyo. hanjabaadan iyo hadaladan aa jeedinaysa jooji. meedaanka dagaalka ha lagu bedelo wada hadallo. shiinahana weligoodii allahood golaha ammaanka qaramada midoobay iyo cid walbay u sheegayeen in dagaalka la joojiyo oo wada hadal wax lagu xaliyo. laakiin madaxweynaha maraykanka qorshayaasha uu wado waxaa ka mid ah dhowr hanjabaad oo hore u jeediyey. kulankan waxyaabo waaweyn oo tanaasulaada ayaa laga yaabaa inuu shiinaha u sameeyo. khabiirada qaar waxay leeyihin tanaasulaadka waxaa ka mid noqon doona arrinta Taiwan, inuu tanaasulaad ka sameeyo. maadaama haddeer oo maraykanku hub iyo saanad iyo wixii uu lahaa uu ka soo raray gobolkaas oo halkan uu keenay, waxay tahaba labada dhinac markay kulmaan ayaa la ogaan doonaa waxay ka wada hadlaan. laakiin khabiirada labada dhinacba waxay sheegayaan in gorgortan xoog leh iyo wada hadallo culus inuu meesha ka dhici doono. waa tahay daawadayaasha warar arrimahaasi ugu dambeeya inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijka si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo.